mararka qaar saaxiibka inaa aamintid aad ayay u adag tahay qof saaxiibka haddana inaa bartid qofka dunida aa ugu jeceshahayna waa mid kaloo adag mararka qaar saaxiibtinimada ayaa waxay keentaa in gabadha dunida aan ka jeceshaha aa bartid si markaas dumaasho ugu noqdo waxaan idiin soo gudbi doonaa qiso aan leeyahay saaxiibkay wuxuu ahay dhabarka ayuu iga toogtay qisadaas waxaana la soo wadaayay mid ka mid ah saaxiibada ku xidhan barteena youtube-ka tiktok facebook dhammaan ay nagu qoran yihiin socdaal 24 qisada waxay ku bilaabanaysaa sidan maxamed wuxuu dhahaa waxaan ku noolahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gabadha aan jeclahay magaceeda wuxuu noogu soo koobay ismahaan waxaan isbarana ayuu dhahay muddo laga joogo hadda 6 sano xiriirkeena jacayl waxa uu socdo dhahay 7 sano ee ugu horeysay xiriirkeena wuxuu dhahay maxamed wuxuu ku socday si walaaltinimo mar walba oo aan u sheega lahaa xiriirka jacaylkana aad ayay iigu adkeed inaan u sheegto sababtoo ah walaaltinimada naga dhexeysa ayaa waxay ahayd heer aad u sareysa ayuu dhahay waxaan wada dhiganaynay hal iskuul ayuu dhahay wuxuuna naga codsaday magaca iskuulka inaan qarino iskuulka aan dhiganayna waxaa ahayn 2 qof oo kaalinta koowaad iyo kaalinta saddexaad kala galno ahay ayuu dhahay dadaalkeenu aad ayuu u leeyahay markaa u soo dego waxay ahayd oo dhahay gabar aad u qurux badan dharka ay soo qaadanaysana aad ayay ugu taxadiri jirtay waxayna ahayd gabar aad u asturan oo aad u fiican ahayd reerkoodu waxay ahayd reer aad u ladan ayay ahaayeen oo reer fiican ayay ka soo jeeday anigu qoyskeyga waxa ay jireen oo dhahay maxamed miyiga aniga oo kaliya ayaan jooga magaalada waxaa la noolaay eedadee aabahee la dhalatay ayuu dhahay ayada ayaan isoo korisay muddo ayaana waqti la qaadanaya uu dhahay maxamed sheekada sidaas markuu noogu waday waxa uu dhahay inta badan waxaa dhacday in aan iskala shaqeyno iyo casharada uu dhahay oo mar walba imtixaanada iyo waxyaabahaas ayaan iskala shaqeey jirnay 2 sano ee dhamaatay sanadkii saddexaad ayaa waxa ay hirgashay inaan u sheegto xiriir jacayl oo qurux badan markii aan u sheegtay aan dhahay adiga ayaan ku jeclahay waxay ahayd habeen Arbaca oo khamiis soo galeysay ayuu dhahay erayadeena waxay bilaawdeen 11 galabnimo xilliga xiriirkaan sheeganayno wuxuu ahaa waxa uu dhahay habeenkii 6 saac 7 saac markay ku dhaceysana waa la iga aqbalay isla markaa uu sheegtay xiriirka jacayl ee quruxda badan waxa uu dhahay ayada hadal buuq muranna meesan dhale markaas ayay dhahday cirbad igu taagan ayaa iga bixisay taasoo ah anigu inaan kaa xishoonayo mar hore ayaa nafteyda kuu dhiibay waana kuu hadiyadeeyay ayay dhahday ismahaan markay sidaas dhahday xiriirkooda halkaas ayuu ka bilowday markaas ayuu maxamed dhahay qof aan calmado qofkii ugu qiimaha badnaayaa teed gabar haddii xiriirkeeda loo bandhiganayo adiga ayaan kuu soo bandhigi lahay markaas ayay ismahaan dhahday waxaa tahay geesi la hubo oo qofna aysan garanayn ayay dhahday aniga ayaa garanayo dadnimadaada iyo naxariistaada halkaas ayaan kusoo afmeerayaa qaybtii koowaad saaxiibkay dhabarka ayuu iga toogtay aniga oo gabadha aan dunida ugu jeclahay dumaash ahaan u baray la soco qaybta labaad oo aad u